وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله وسلم عليه. marka hore garaa Cabdullaahi garaa Salmaan garaa Maxamed waxaan ku mahadinayaa gogashan iyo quruxdan iyo suuriyadan iyo jazaakallahu khayra jazaa gurigan iyo dadkan iyo ehelka iyo reerka Allah barakay. marka labaad waxaan mahadinaynaa dawladda Puntland iyo dadkeeda tolnimadii iyo walaaltinimadii ay noo muujiyeen iyo hiilkii iyo garab istaagii dalkoodii bay ahayd ma sha Allah waa mahadinaynaa. marka saddexaad go'aamadu waa sida garaa Cabdisalaam uu akhriyay. marka afraad arrinka iyagu wuxuu la mid yahay reerkii miyiga habeenka in roob da'o iyo inuu saddeynba laga tashanayay miyaynu looganaa mise waa daysanaa. waxay oran jireen ninka yiraahdo caawa aynu reeraha u loognana lixajcelada waa eegaya gaajadu ka taliyay. ninka yiraahdo aynu daysanana gaajada waa arkaya lixajceladu ka taliyay. doorashada iyo xaaladaha abuuran waa arkaynay laakiinse midnimada SSC yaanu ka talin midnimada SSC yaanu ka talinay khaatumo. waxaa noo raacda weli waa taageersanay hadalkii madaxweynaha Cabdiqaadir Axmed Aw Cali ahaa gogol baanu dhigaynaa in la wada hadlaanu diyaar u nahay in la tashadaanu diyaar u nahay taana weli waa noo taagan tahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. go'aanka iyagu waa sidaa ismadii ugu horreeyay ay sheegeen. arrimuhu xaaladii aynu soo maray waynu ogeyn baashi cagtaa loo dhigi waayey duruufo jira awgood yaac fara badan gacmo gelin ixtiraam darro badan oo dhacday waa muro badan oo aynu si degan loo maamuli lahaa markii cirka iyo dhulka weerar laga soo qaaday. waxaanu taladaa ku soo ururinay annaga oo ka cararayna inaanu annagu xaaladda ka baxno annagoo duruufo adag soo maray hawlihii weli noo yaalaan. markii baashaydii meel khatara gaadhay waxaanu maanta isla qaadanay oo isugu nimi go'aanka halkaa laga akhriyo afayeenka ismadu. hawshaas waa halkaa xullimadii wadaatashigii dambe wixii dambe aynu dib ka yeeri doono intuba annaga iyo ehelkayo waa noo taallaa. laakiin waxaanu maanta caddaynay mar haddii waddankii markuu siigu afarta jiho nagaga timi oo qudhayadii aanu khatar gallay oo ismadayadii aanu sigannay oo dadkayga shan qalbac u kala dhaqaaqay taladaa maanta waxaan ku soo ururinay annagoo eegayna danta iyo dalka iyo ummadayada iyo wixii aanu soo maray iyo xaaladii halkii ay joogeen iyo maamulkii aanu dhisnay annagoo eegayna waxaanu go'aaminay wax limaana inaanaan xulay inaan suuqa laga xulanay inaan cid kastoo la hadal hayo lahay suuqa liis kastoo samaystay aan waxba ka jirin. labada xubnood oo guddiga khilaafka ah inay saacadda laga bilaabo dadweynaha ka mid yihiin go'aanka aanu gaadhnay waa kaa aad iyo aad baad mahadsantihiin. wixii dambe aynu isugu iman doono iyo tii tollimada iyo haddiinu gogol dhigi doono iyo haddii waxgaradka reer dadka magacan guud wadaagaa isu iman doono intuba waa tala dambe. laakiin hordhici go'aanku halkaasuu maanta yaallaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin khayr badan baan idiin rajeynayaa wabilaahi towfiiq. kan isugu keenay horta go'aamadu waa sidaas garaadku akhriyay la gaadhay ismada SSC khaatumo ay gaadheen waa saa weeye. waxa weeye inaanan anagu qoraynin inaan laga qoran karin garoowe suuqiisa oo maamulka hadda jira qoran karin hadduu qortana inaysan ahayn wax shaqaynaya mucaaradkuna inuusan qoran karinin muxaafidkuna inuusan qoran karinin guddiga labada xubnood naga jiraana inaanayna matelin cid iska sharixi karta oo ka tirsan SSC khaatumo Puntland inaanay jirin. horta go'aanku garaadku sidaa u akhriyay weeye. sababta kaliftayna waa sabab aad garanaysaan. waxaan rabnaa cid kastaaba inay noqotay khasab annaka iyo Puntland walaalaanu nahay laba maamulo walaalo siman baanu nahay waliba maamulkii naga weynaa inuu yahay oo na ilaashado oo na ilaaliyo baan u baahan nahay. aadna waan ugu mahad celinaynaa halgankii waxay cod kaga qaateen iyo waxay cudud kaga qaateen iyo waxay calaf kaga qaateen ba wax si sahlan lagu ilaawi kara maaha. waxaanu madaxay noo saaran yihiin garabkoodaanu taagannahay anana garabka yagaanu ka filaynaa. arrintan waxaa laga yaabaa dad badan inay yiraahdaan maxaa sababay waad ogeydeen waddankeena waa la haystay maamul inagoo kala ama qabiil inagoo kala aba haystay
15 sannadood bay haysteen waynagii dhiidhinay ka dhiidhinay waynagii ku dhimannay waynagii iska kicinnay waa tii la shiradoo dadka SSC Khaatumo degana ay shireen waa kuwii go'aan soo saaray inay ku midaysan yihiin go'aan inay maamulina yihiin waa kuwii soo saaray idinkuna waa idinkii taageeray magaca dagaalka waynagii ku gallay arrintaas horta waa inoo horreysay waana isku waafaqsanay maanta markii doorashadii Puntland timid maamulkii inuu maamulnimadiisii maamulkii ahaado iyo inaanu xildhibaano soo xullo oo isqaban weyday cid kastaana waa garanaysaa arrintaas waa isqaban weyday waa isqaadan weyday waa kala badbaadinay markaa labadii maamul waxaan qaadanay go'aaminay inaan kala badbaadino kii yaraa hadda inoo dhashana aynu wada ilaashanno oo dadkeedu isugu yimaado ninkii shaqo rabaa u soo shaqo tago ninkii iska soo sharaxaya iska soo sharaxo doorashada dambe markay imanayso keenni horena halkiisa inoo ahaado inoo ilaashamo garab aanu anagu u noqonno iyaguna garab noo noqdaan doorashada hadda loo madlan yahayna haddii 49 dhiman lagu gelayo 17 haddii ay loo qaybinayo beelihii ka hadhay SSC labadaba waa u fasaxantihiin garabna waan idinku siinaynaa xeerkii iyo dastuurkii la qorayna quraanna ma ahayn xadiis nabina ma ahayn iminkaba waa tii la bedelayay arrintaas yaanay dhibaato keenin annagu waanu kala badbaadinay labadii maamul ninowna si xun ha u arkin maamulka Puntlandna waanu garab taaganahay hiil iyo hooba waanu la garab taaganahay waxaanuna ku dadaalayna inaanu abaalkaa celinno arrintaa nin kastoo waxaad u fahamtaa in labadii maamul in xildhibaan la soo xulo iyo in kaniisidiisii ahaado la isku wadi waayey hadalkani labadiibu kala badbaadinayaa sidaa u arag ninkii ka xumaanayowna adeer waxaanu ka leenahay raalli noqo in badan baa laga doodayey siyaasaa laga wadi waayey danteenu sidaa weeye laakiinse garab iyo gaashaan ayaynu isu nahay aad baa u mahadsantihi 20 bishii December 2023 waxa guriga Garaad Cabdilaahi Garaad Saleebaan isugu yimi ismada dhaqanka Khaatumo wajiyadooda halka ay fadhiyaan waxaanu gaarnay go'aamo masiiri ah kuwa iyaga gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba inta yadan waa shirnay shir baanu saako dhan u fadhinay intii naga maqnayna waxaanu soo gelinay khadka telefoonka go'aan aanu ku midaysannahay oo aanu dadka iyaga ugu turayno aanu isleenahay waa xal aanu ugu turayno walaalahayo reer Puntland iyo cid kastaba oo aanu isniri waa go'aanka ugu wanaagsan ayaanu gaarnay waxaanu gaarnay sida tan kow waxaanu goosanay inaan 17 xildhibaan la qorin oo ayna ka qayb galin doorashada Puntland ka dhacaysa deer labo waxaanu goosanay inaan kuwa loo cusboonaysiinayaa jirin oo taas macnaheedu noqonayso wax reer Khaatumo ah oo xildhibaana oo ka qayb galaya bataatan baynayna jirin qodobka labaad inaan la iska sharixi karin madaxweyne ku xigeen ama madaxweyne u dhashay reer Khaatumo inuusan iska sharixi karin xilligan Puntland waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye guddiga khilaafaadka waxa ku jira 2 qof oo reer Khaatumo ah inaynan metelin laga bilaabo hadeer inaynan metelin reer Khaatumo isla markaana waxaan ku codsanaynaa inay iscasilaan qodobka afraad wixii talo iyo wanaag qodobka afraad maadaama intaas oo dhan la gaadhay raggii wax qori jirayna halkaa inay joogaan oo wajadooda aad aragtaan oo ay igu taagay ma garanaysaa anigu afayaan baan ahay laakiin waa go'aankii ay ka soo baxay wayna hadli doonaan waa raggii wax qori jiray inaan suuqa laga qoran karin inaan maxaa la yiraahdaa mid warqad hore beri hore haysta ay shaqaynaynin go'aankaas waa go'aan la gaadhay wixii intaa dhaafsiisan walaalaha iyo reer Puntland waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo wanaag iyo doorasho wanaagsan wixii intaa dhaafsiisan ee wada hadal ah ee ka dambeeyana diyaar baanu nahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo ay bishu tahay 23 bishii 10aad maalin sabti ah waxaanu shir degdeg ah isugu nimi anagoo hogaankii dhaqanka ah garaadadii iyo waasyadii iyo boqoradii halkana intii ku sugnayd gudaha
soomaaliya ay joogaan inta maqan oo uu ka mid yahay garaad maxamed garaad abshir garaad mukhtaar cali garaad cali ugaas cabdilaahi ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi suldaan mustafe aanu khadka taleefanka muddo 5 saacadood aanu waxa weeye tale ku rogrogaynay taladaas oo ah masiirka ummadda reer SSC waxa uu noqonayo iyo sida Puntland iyo SSC kala noqonayaan tala dheer ka bacdi ayaamahana waxa socday hadal badan Soomaalidu waxay ku maamaadaa ragmaankoodu waa madaxweyne afkood haddii aad maqasheen hore u maqasheen iyadoo qof waliba sida uu arkay ku talinayay maanta taladan waa tii ugu dambeysay wey inaan xaro maqal buu yiri nin walba liq wixii calooshaada ku jiray arrinkan maamulka SSC uma yaalo hoggaanka dhaqanka ayaa waxa weeye taladan u taalay maadaama iyagu ay soo xuli jireen way maamulka SSC uu ka dambeeyay maamulka Puntland institution kuna dhigi maayo in maamul la hadlo inta waanu garanaynay laakiin inta fikradan ururinayna waxaan ururinayna dadka SSC waxa ay qabaan iyo meesha waxa weeye ay u jahaysan yihiin inaan ogaano go'aankani go'aan anaga naga soo baxay ma waa go'aan shacabka reer SSC ka soo baxay 6 February waa la qaatay in maamulkaasi uu yahay maamul dowladda federaalka hoos tagaya Puntlandna waxa weeye waa maamul aanu ognahay oo waxa weeye tolkaya ah marka waxaanu maanta cadeynaynaa sida uu garaad Cabdisalaan oo afayeenka isimada ah uu cadeeyay shanta qodob inaanu isku raacsanahay cidina aan loo xulayn Puntland cidina aanay tegayn cidina waxa weeye haddii waxa weeye ay tagtana aan la isku raacsanayn waa shanta qodob wey nin waliba halliqo maamulka SSC-na shacabkiisa waxaanu leenahay rabitaankiina baa lagu shaqaynaya sida dalkiina iyo dadkiina u difaacan lahaydeen baladka doonaya oo aad isu garab istaagi lahaydeen oo waxa weeye nidaamkiina iyo taladiin waxa weeye ay u sii adkaan lahayd Puntlandna wax allaale wixii tala ah iyo wixii tolliima ah iyo wixii hadal ah iyo wax allaale wixii garabsho ah intaba diyaar baan u nahay waxyaalo fara badan oo noo yaalana waa jiraan taanu maanta cadeyno waa tii 17 laakiin wixii kale tolliima ahaa iyo wixii hawl ee kale waanu isugu imaanaa waanu ka wada hadlaynaa laakiin 17 sida ha lagu liqo ninkii campaign gareenayo sida ku joogso ninkii waxa weeye tala ka sugayeen sida ku maqal waa go'aan dhaqan weeye cid ka maqalina ma jirto cid ka daba hadli kartaana ma jirto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh